u fiirsateen iclaamka hadda waxa wareegaya nimankii reer galbeedka madaxdoodii ama Ameerika ha la yidhaahdo ama qaar kale ha la yidhaahdo iyo wadamo badan oo kale nimankii madaxda u ahaa iyo maalqabeenka ama dee aad caanka u ahaa oo meel jasiiraday janno yar u bixiyeen samaystay dabeetana halkaa hablo la soo iibiyey adduunyada loogu keenayo yaryar laakiin oo underage oo wax dee 15 iyo wixii ka sii yaruna dabeetana way karbaashayaan way ka sinaysanayaan qaarkoodna waabay cunayaanba ma isleedahay dad imika dadka cunaa jira oo madaxa oo tujaara waa kuwan dee bal u fiirso baraha bulshada iyo waxda iska macruufa weeyo kolba mid baa odhanaya raalliga ahaa habeen baan anigu tegey kii Bill Gates baa qayliya wuxuu lahaa anigu cishaayiga ka hor baan tegi jiray ina yarna lama kulmin iga raalli ahaada 440 milyan baa maalin kaliya khasaaray shirkadiisi markay ceebtaasi ay ku soo baxday marka waa jasiirad shaydaan uu joogo dabeetana markay dadkani soo dhameeyeen waxa la wixii kale xaaraan iyo ceeb iyo dabadab laga waxeeyo wixii markay soo dhameeyeen ayaa waxay dhahan maxaa inoo haray waa dadka aan de itaalka yara maatida ah in la dulmiyo cunaha la qabto oohintooda lagu istareexo la dhibo maxaan ku dhaha loo galmoodo hilibkoodana la cuno halkaasoo ilbaxnimadii xadaaradii gaaladu halkaasay maraysa ninkii ku dayanaya daba ordayo taa horay la socotaa mawduuca ah baahida dadka in laga faa'iideysto waalidkiina waxa la oranayaa $50,000 qaado ilmahaagana waxbaa lagu soo barayaa waarmeeda wuu soo socdaa jaamacaddu ku jira waa mid la cunay ama sina lagu baabiiyey subxaanallah marka akhlaaqda islaamkee wanaagsan wuxuu balaayooyinkaa kaga hortegay istiidaanka guryaha marka la galayo in fasax ma soo galnaa fasaxaasi jiro cawrada in la asturo rag iyo naago cid meel la isugu geeyay inaanay jirin dab iyo gaas in la kala ilaaliyo kala ajaaniba dee ilaahay wuxuu eedeeyey hablihii ama dumarkii oo lagu dirqiyo xaaraan iyo xumaan waxaa la mid ah wax kastoo sharcigu u diiday in lagu dirqiyo idan marka arrintaasi waxay sheegaysaa si caamay daliilkuu noqonayaa min ikraahi الnisaa alistiqlaalu min xaajati الnisaa ikraahan waxaa ka mida baahida dumarkaoo laga faa'iidaysto baahida dumarka intoo laga faa'iidaysto iyo duruufta haysata in lagu dirqiyo xaaraanta ama raalli ha ka ahaadaan ama yaanay ka ahaanin inay raalli ka yihiin inaanay raalli hadday raalli ka yihiin xataa sax maaha baahida mialan waxaa ka mid ah maal oo waxaa la leeyahay haddaad xumaantaa samaysa xoolaan ku siin intaa markaasaa mid aan sina doonayn baa aqbalaysa haddaad isqaawiso waxaanu ku siin doonaa xoola intaa leeg ama dharkaa dabciso sidoo kale shaqo waxaa la leeyahay shaqadu waxay kaaga xidhantay xijaabkaoo tuurto heblaayo waxaa kugu raran taandhaad u egaatay taambuug waas hay-adaha qaarkood iyo baa sidaa sameeya waxay idhahdaan dee dadka u soo egow dadka horta tiifiyada qaarkoodna waxay idhaahdaan waad qurux badan tahay dee wax lagaa yara macaasho iyo meelo lagaa yara daawado kasta marka waa inuu jiraa ballaabtiiya soo banneed dee madaxa iyo way isyargiijinaysaa way isyargiijina kii mushaahar weyn baa hor yaalla shayddaanku markaa wuxuu odhanayaa ilaahay baa faxane waa toobadkeeniya ka soco dabeedna tii xijaabnayd baaba dharkii dhiganaysaba weliba way dhacdaana kuwa xijaaban laftooda inay raadiyaan waxaa la mida tacliintiiyo waxbarashada way dhacdaa meelaha qaarkood waddamadan islaamka ahayn ama kuwa islaamkaaba mucallim faasida baa jiri kara oo ardaydii u saxaya hablaha ahaa imtixaankii dabeetana odhanaya ama lacagi sii ama jidhkaaga idhiib haddaad doonaysa maadadda inaan kuu dhammaystira haddii kale waan ku ridayaa waxaa laga yaabaa midhisan iyo caafimaad inay ku jirtay oo 8 sannadood ay la soo jiiftay hadday maadaddaa ku dhacdana waa laga kansalayaa khatar cadiim waxaasoo dhan waa in loo dhug lahaadaa waalidka murabbiyiinta maamulka waa in loo dhug lahaadaayo qofka waxaa lagu ogaado waa in hawada laga xidhaa oo ummadda laga qabtaa istiqlaalka laga faa'iidaysanayo dumarka iyo cafiifaadka dhowrsoon duruufta haysata waxaa saddexaad aynu ka faa'iidaysanaynaa min akhlaaqi alislaami alxamiida alisti'daan wa satru alcawra wa cadamu alkhulwa
akhlaaqda quruxda badana islaamka waxa ka mid ah taa horta intaynaan soo dhaafin waa mushkilada maanta taagan